kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkan oo warbaahinta kaahiya media kusoo dhawaada faahfaahinta iyo wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax ruuxi soo miidaamiye uu ku qaaday xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho. Xarunta waqtiga weerarka ka dhacay waxaa la sheegay inuu ka socday shirka maalin walba Arbaca ay yeeshaan maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir kaas oo looga arinsado arrimaha amniga ee magaalada caasimadda Muqdisho. gudoomiyaasha 17 degmo ee magaalada Muqdisho oo lagu daray maamulka gobolka Banaadir iyo taliyaal ciidan ayaa la sheegay in kulanka ay goobjoog ahaayeen waxaase la ogeen qaraxa nuuciisa. warar kala duwan ayaana sheegaya in ruux weyn uu soo miidaamiyay goobta isku qarxaysa. sidoo kale dadka qaar waxay sheegayaan in qaraxa goobta lagu diyaariyay. waxaa ilaa iyo haatan intii la xaqiijiyay qaraxa ku geeriyootay 6 qof oo ay qayb ka yihiin gudoomiyihii degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir Sabax Asad iyo gudoomiyihii degmada Waabari ee gobolka Banaadir ninka lagu magacaabo Mahad. sidoo kale weerarka dadka ku geeriyooday waxaa qayb ka ah afhayeenkii hore ee gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xarane madaxweyne kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. dhaawacyo kala duwan oo kuwa halis u badan ayaa soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow kaas oo maray qalliinkii labaad isla markaana lagula tacaalay xaaladiisa caafimaad. warar hoose ayaa xaqiijinaya in la diyaariyay diyaarado dalka dibadiisa caafimaad ugu qaada dhaawacyada halista ah oo qayb ka yahay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yariisow oo lagula tacaalayo isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo magaalada Muqdisho war-saxaafadeed ku qabtay isla caawa waxa uu sheegay in ay socdaan baaritaanadii ugu dambeeyay 6 qof ay geeriyootay 6 kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. 6da geeriyootay waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin 2 gudoomiye degmo 3 gudoomiye waaxeed oo madaxweyne ka ah maamulka gobolka Banaadir iyo dad rayida sida uu hadalka u dhigay. xaaladda ayaa marka ka dambaysa soo taraysa iyadoo dadka geeriyoodana ay soo tarayaan waxaana qayb ka injineerkii guud ee gobolka Banaadir Injineer Shuuriye iyo dad kala duwan. Basma Amir Shakeeti oo gobolka Banaadir xal sare ka yeesay iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Ibrahim Dheere ayaa labaduba barahooda Facebook ku xaqiijiyay in aysan wax dhibaato soo gaarin xaaladooda caafimaadna ay wanaagsan tahay. wararka ugu dambeeyay wax walba oo ku soo kordha weerarkaasi saaxiibayaal kala socda Kaahiya Media. nabadgelyo.